injiilka sida Matthew u qoray cutubka 15 markaas waxaa Yeruusaalem Ciise uga yimid niman Farisiin iyo culimo oo waxay ku yiraahdeen xertaadu maxay xeerka waayeelada uga gudbaan waayo ma faraxashaan goortay kibis cunayaan wuu jawaabay oo ku yidhi idinkuba maxaad amarkii Ilaah uga gudubtaan xeerkiina aawadiis waayo Ilaah wuxuu amray aabbaha iyo hooyada maamuus oo kan aabbihii ama hooyadii caaya dhimasho ha ku dhammaado laakiin waxaad leedihiin kan aabbihii ama hooyadii ku yidhaahda wixii aan idin tari lahaa hadiyad baan Ilaah ugu bixiyey aabbihii ama hooyadii maamuusi maayo xeerkiina ayaad hadalka Ilaah ku buriseen laba wajiilayaaliyow Isayos aad buu wax idinka sii sheegay markuu yidhi dadkanu bishimahooda ayay ugu maamuusaan laakiin qalbigoodu waa iga fog yahay si aan macno lahayn ayay ii caabudaan iyagoo dadka wax ku baraya amarada dadka markaasuu dadkii badnaa u yeedhay oo ku yidhi maqla oo garta ma aha waxa afka gala waxa ninka nijaaseeya laakiin waxa afka ka soo baxa kaas ayaa ninka nijaaseeya markaasaa xertii u timid oo ku tidhi ma og tahay Farisiintii inay ka xumaadeen markay hadalkii maqleen laakiin wuu u jawaabay oo ku yidhi geed walba oo aan aabbahayga jannada ku jira abuurin waa la rujin doonaa iska daaya iyagu waa indhoolayaal hagaye laakiin nin indhala hadduu nin indhala hago labadooduba god bay ku dhici doonaan markaasaa Butros u jawaabay oo ku yidhi masaalka noo caddee kolkaasuu wuxuu yidhi idinku weli ma garasho la'aan baa tihiin miyaydnaan garanaynin wax kasta oo afka galaa calooshay tagaan oo waxaa lagu tuuraa meesha lagu xaaro laakiin waxa afka ka soo baxaa qalbigay ka yimaadaan oo kuwaas weeye waxa ninka nijaaseeya waayo waxaa qalbiga ka soo baxa fikirada shar kale iyo dilidda iyo sinada iyo wasmada xaaraanta iyo tuugnimada iyo maragga beenta iyo cayda kuwan weeye waxa ninka nijaaseeya laakiin in lagu cuno fara aan la maydhin ninka ma nijaasayso Ciise ayaa meeshaas ka baxay oo dhinacyada Tuuros iyo Sidon ayuu u leexday oo naag reer Kancaana ayaa soodimahaas ka soo baxday oo qaylisay iyadoo leh ii naxariiso sayidow ina Daawudow gabadhayda jinni baa si xun u waalaya laakiin hadal uguma uu jawaabin markaasaa xertiisii u timid oo bariday iyadoo leh eri waayo way inaga daba qaylinaysaa laakiin wuxuu u jawaabay oo ku yidhi la iima soo dirin idaha lunsan ee reer banu Israa'iil maahe laakiin iyadu way u timid oo u sujuuday oo waxay tidhi sayidow caawi wuxuu u jawaabay oo ku yidhi ma wanaagsanaa in carruurta kibistooda la qaado oo eeyaha loo tuuro waxay tidhi waa run sayidow laakiin weliba eeyuhu waxay cunaan jajabka ka dhaca miiska sayidkooda markaasaa Ciise u jawaabay oo ku yidhi naagtay rumaysadkaagu waa weyn yahay ee ha kuu noqoto sidaad doonaysid oo saacaddaas baa gabadheedii waa bogsatay markaasaa Ciise halkaas ka tegey oo wuxuu u soo dhowaaday baddii Galili oo buurtuu fuulay oo halkaasuu fadhiistay kolkaasaa waxaa u yimid dad fara badan oo wada kuwo curyaana iyo kuwo indhala iyo kuwo carabla iyo kuwo addimala iyo qaar badan oo kale oo waxay iyaga dhigeen cagihiisa agtooda
wuuna bogsiiyey. sidaa daraaddeed baa dadkii yaabay goortay arkeen kuwii carabka lahaa oo hadlaya, iyo kuwii lugaha lahaa oo bogsaday, iyo kuwii curyaanka ahaa oo socda, iyo kuwii indhaha lahaa oo harkaya, waxayna ammaaneen ilaaha reer binu Israa'iil. markaasaa ciise xertiisii u yeedhay oo ku yidhi, dadka badan ayaan u naxariisanayaa, waayo durba 3 maalmood ayay la joogeen, oo waxay cunaanna ma haystaan. dooni maayo inaan diro iyagoo sooman, waaba intaas oo ay jidhka ku itaal beelaane. xertiisii waxay ku yidhaahdeen, innagoo meel cidlaa joogna, xaggee baynu ka helaynaa kibis intaa le'eg in dadka sidan u badan ka dhergaan? ciise ayaa ku yidhi, imise kibsood baad haysaan? waxay yidhaahdeen 7 iyo waxoogaa kalluun yaryara. oo wuxuu dadkii badnaa ku amray inay dhulka fadhiistaan. markaasuu 7 kibsood iyo kalluunkii soo qaaday, oo goortuu ku mahadnaqay ayuu kala jejebiyey oo xertii siiyey. xertiina dadkii badnaa ayay siiyeen. dhammaantood way wada cuneen oo dhergeen, oo waxay soo ururiyeen 7 dembiilood oo ka buuxa jajabkii hadhay. dadkii cunayna waxay ahaayeen 4,000 oo raga, oo aan naagaha iyo carruurtu ku jirin. kolkuu dadkii badnaa diray dabadeed ayuu dooni fuulay oo wuxuu galay soodimaha magadan.